ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo Villa Hargeysa ku hayay gudiyadii magacaabeen labada dhinac kala duwanaanshaha mooshinka kala duwan Jawaari wadahadalada xoogooda waxay salka ku hayeen sida lagu soo afbeeri karo khilaafkan iyo wadada in loo maro ay tahay iyadoo xildhibaanadu ay aad u kala duwanaayeen marka loo maamulka la soo dhaafay iyo qaababka labada dhinac ay rabaan inay u wajahaan qaabka halka loo qaaday gudoomiye Jawaari diga uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari waxay kulamo la qaateen madaxweynaha Soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee kulanka looga hadlay inkastoo hayeen heshiisyo siyaasadeed ama maaragtay siyaasadeed looga hadlay haddana faahfaahinaysa ka bixin waxa ugu weynaa oo xogaha qaar aynu helin ay sheegayaan in arrinta lagu dhameeyo wadahadal oo qodob kamid ay ahayd islamarkaana loo maro hanaan dastuuri ah waxyaaba kale ugu weyn waxaa kamid ah in qaadka codqaadista dooday ka taagneed xildhibaanada uu magacaabay gudoomiye Jawaari ay soo jeediyeen in dhankooda diyaar u yihiin in codka kalsoonida loo qaado gudoomiye Jawaari balse ay hordhigeen in hanaanka loo maray ay tahay in codku noqdo qaab kalsoonida isla markaana ay ka dhacdo meel la wada joogo ama meel maaragtay dadku dhayihiin hadalka u dhigeen inkastoo weli dhinacyadu waxay ka wada hadleen ama ku heshiiyeen faahfaahin ka sayda saxaafadda laakiin dhinaca kale doodo taalamid ayaa ka socota ilaa iyo xaala waqti dambe waxaa dhammaan laga hadlayay waxaa laga yeeli karaya khilaafkan madaxweynuhu wuxuu hadda dhegeysanaya dhinacyadaas waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu dambeyntii lasla soo qooriyay inay la wadaagi doonaan dhinacyadii soo diray iyo waxa ka soo baxay inkastoo weli waqti hore ay tahay oo wax xoog badan xusin aan laga hayn waxyaabaha ugu waaweyn ilaa waqti dambe xaal isla gaareen dhinacyadu waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada xasilinta ee Muqdisho laga saaray goobihii ay joogeen marka maxay tahay sababtu waa mahadsan tahay ciidamada xasilinta oo inta badan ku sugan gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan ku tirsanaa wadnaha laga soo bilaabo halka loo yaqaan isgoyska Baneeyay dhanka Cabdicasiis ilaa iyo jagboonta weyn oo ku yaala wadaagaha waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta una hay'adda nabadgelyada qaranka marka laga reebo jagboontada airportka Muqdisho ay ka sugnaayeen dhammaan waa laga fay goobaha ku sugnaayeen gaar ahaan wadnaha ciidamadaas ay kala sugnaayeen ilaa kuwa amniga waxay ii sheegeen in ciidamadaas loo wareejiyey wadada warshadaha ama jidka warshadaha ee u dhaxaysa labada exit control balcad exit control afkooye halkaas ay ka horjeedi doonaan islamarkaana wadada warshadaha waxaana hadda ay ka baxayaan marka laga hadlayo gudaha goobahay kala sugnaayeen jidka wadnaha iyo sodonka iyo meelo kale ay kala sugnaayeen gudaha magaalada Muqdisho meelahaas waxaa hadda bedelaya oo u diyaar garoobaya ciidamada booliska Soomaaliya meelaha waxaaba hadda ka howlgala oo la wareegay ciidamada booliska ay sheegeen saraakiil kuwa amni ka tirsan marka ciidamada xasilinta oo badnaa kuwa hay'adda nabadgelyada hadda waa laga saaray meelahay ku sugnaayeen waxaana shalay galkii dambe ilaa xalay magaaladu ay hayeen meelahay ku sugnaayeen gaadiidku isku furnaayeen suuqaadka magaalada oo maalmihii lasoo dhaafo khasneedna hadda wax jagboonti ama meelo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada ma laha waxaana hadda meelaha qaarna booliska ayaa ka howlgal haddana waxay ciidamada booliska ay sheegeen saraakiisha qaarkood diyaar garoobaya in guud ahaan ay la wareegaan meelihii ciidamada xasilintu ay baneeyeen xuseen oo in muddo ay ku sugnaayeen tan markii howlgalka xasilinta uu bilowday gaar ahaanna arbacadii lasoo dhaafay ilaa hadda magaaladu waxay ahayd ilaa shalay waxay ahayd aktirnaan badan oo dhanka amniga ka jirta maadaama wadooyinka ay haliyeen aad iyo aad buu mahadsan yahay